waxaan caawa halkan hambalyo ka dirayaa oo hambalyo ku aadan 26 Juun oo ah maalin Soomaalinimada aad ugu weyn wada jirka iyo isku tashiga iyo Soomaalinimada aad mataqaana ugu weyn waxaan rabay halkan inaan ku muujiyo dareenka iyo miisaanka iyo mugweynaanta ay 26 Juun u leedahay ummadda Soomaaliyeed taasi oo ay wax ugu weyn ay tahay in halgankii xorriyad u dirirka ay u soo dirireen dhalin Soomaaliyeed oo soo gaarsiiyay heer gumeystihii heeridii aan iska tuurno gobolada waqooyiga ay qaataan xorriyad wax ugu horeyn marka waxaan doonayay halkan in aan sidoo kale ka muujiyo sida ay muhiimad u leedahay wada jirka midnimada iyo wada isku tanaasulka iyo tashiga siyaasiyiinta u leedahay hagidda ama hoggaan u noqoshada dalka iyo dadka si dhaba u muujiyo doorkii weynaa halgankii Xornimo-doonka ama xaq-u-dirirka ay ku lahaayeen dhalinta Soomaaliyeed oo ahaa door marnaba aan wax qarsoomi karin ahayn oo ay dhalintii halgankii SYL heeridii gumeysiga ay door weyn oo dhalannimo ay u hormuud u ahaayeen gumeystihiina halkaasi Soomaaliya ay guud ahaan looga xoreeyay ayadoo dhiig badan ay dhalintii ku daadiyeen halkaas oo gumeystaha ah si mataqaana waxaan rabaa halka marka inaan muhiimad ku sii muujiyo muhiimadda dhalintaas maalintaasi ay u lahaayeen doorka muuqda ay ugu qayb qaateen doorkii hoggaanka siyaasadda iyo qaybihii maamulkaba maanta waxaa halkan ka cad in muhiimad gaar ah aan iska saarin hoggaan u noqoshada hanashada dhalintii iyo mataqaana ayagoo door weyn oo dhalinta 75% dalka ay ka yihiin inaan la siin wax door muuqda ah oo dhanka siyaasadda ah dhanka maamulka intaba marka waxaan halkan baaq ku aadan gaabkaasi ka muujinaya in dhalinta saaxadda siyaasadda iyo maamulkeedaba loo dhaafo oo mataqaana qoonda gaar ah loo sameeyo oo la ilaaliyo si ay dhalinta ay mar kale wax weyn u sameeyaan oo ay talada qayb ugu noqdaan dalka waxaan kaloo rabay inaan sii muujiyo oo aan ku muujiyo hadalkayga kooban ee ku aadan munaasabadda 26 Juun oo ay golaha iskaashiga Soomaaliyeed ay aad u weyneynayaan caawa bariyii hore waxaa jiray hadal dhihi jiray isku tashada isku tanaasula isku tiirsanaada laakiin maanta waxaan aragnaa in mataqaana cadawgii aan ku tashanay cadawgii u tanaasulnay cadawgii aan ku tiirsanay siltaasi mataqaana ka duwan waa inaan maanta u istaagnaa in aan dalkeena dadkeena iyo mataqaana diinteenaba ilaashano u istaagno dalkan in si la mid ah sidii waa uu ahaa jiray nabadda iyo barwaaqada iyo dalxiiska uu wacnaa dib inaan ugu celino waagaasi Soomaaliduna waxaan rajeynaa in dhamaantood isku tashadaan waxaan halkan rabaa inaan ku muujiyo hadalkii ama oraahdii uu abwaan fooldhub uu horay u yiri oo ahayd aqal tiir la'aantii kaligii ma taagne haddaynan istaakulin tabar yeelamayne ka tashada cadaawuhu isku tiirsanaada oo Soomaaliyo dhan waxaan mataqaana halkan fariin ugu dirayaan isku tiirsanaadaan gacmaha isqabsadaan si mar kale wadankan uu noqdo wadan libaaxyadii Afrika laguna neesi jiray soo dib ugu laabto waxaan rajeynayaa in mataqaana fariinteeda ay gaari doonto dhammaan ummadda Soomaaliyeed